ku dhawaad 20 dhalinyaro oo isugu jira rag iyo dumar lagana kala keenay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hay'adaha caafimaadka ayaa maanta wasaaradda caafimaadka Hirshabelle waxay tababar uga furtay magaalada Jowhar. Tababarka ayaa ku saabsan sidii bulshada ay kaga wacyigelin lahaayeen ka feejignaanta cudurka coronavirus oo kiiskiisii ugu horeeyay laga helay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle oo in muddo ku xanuunsanay magaalada Jowhar kaasi oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Furitaanka tababarka waxaa goobjoog ka ahaa inta badan wakiilada hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala deegaanada Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. Waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay duqa magaalada Jowhar Salax Muuday Cali iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari. sida kadoodiyo u yaala marka qaabyaab fara badan hadii la sheegay ee aad iska dareento waxa la rabaa in guriga isku celiso. Okay, kadoodi anaga waxa u naqaana biyo la inas marayna bis kadib aan waxba kala aan isku taaban daawo kala aan isku taaban waxa laga yaabaa dadkan kale inay cirbada kale inay isku duraan kadib ay qalaf yiraahiin war waa ka adagna kadoodi haduu yahay kadoodi kibri waa leeh kadoodi kibri marka waxa waaye in ilaaliskiisa wuxuu noqonayaa in qofka guriga kaliya isku xiro guriga iska joogo karantiin gurigiisa ku ahaado. runtii marka hore waxaan u mahad celinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in asaa dib qaado asaa keena waxaan leenahay Ilaahay anaga najeeyo cudurkan hadda la sheegayo maalmahan aluu saalka nagu noqday waxaan leenahay Ilaahay naga najeey waxaan u mahad celinaa marka xigto baada caafimaadka ee Hirshabelle sida hufan oo qayb qaadatay maalmahan wacyigelinta maanta waa balaarinayaan maayna wiligood ay wacyigelin ay ku sameey jireen annaguna garabaan ku nahay cid kasta oo kaalinka qaadayso. dhinaca kale gudoomiyaha guddiga caafimaadka iyo waxbarashada ee baarlamaanka Hirshabelle xildhibaan Aadan Odawaa Cumar iyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabelle Muxudiin Mukhtaar Macalin ayaa bulshada reer Jowhar waxay kula dardaarmeen inay qaataan talooyinka tiimka wacyigeliyaasha ah. sida aad la socotaan adduunka waxaa ka jira maanta cudurkan ka wada qaylisiyay aad ku dhibaatada badan oo tabarta iyo loo laayahay awood loo laayahay oo adduunka dhammaan ku faafay la dagaalankiisna lagu jiro aan lahayn sida la sheegay wadamadii ugu horumarsanaa adduunada waa weynaa ilaaha weyne daawo la waayay talaalna ilaa hadda aan loo haynin dadaal hadda wixii ka dambeeyay moogi marka waxay tahay marka asbaabta kaliya oo looga hortagi karo wacyigelin badan in la sameeyo. maanta waxa la isugu yeeray waxa waaye waa in kaliya la idin training gareeyo oo waqti kooban la idin siiyo sida dadka wax ugu sheegi lahaadeen waana ka xunnahay runtii waqtigu aad u yar anagoo soo daahnay iyo xaaladda oo xun in aan waqti badan sii dhumino kaliya waxaan idin kula dardaarmaynaa in aad qaadataan casharada la idin siinayo runtii si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo WHO xafiiskeeda Hirshabelle oo runtii door muhiim ah ka qaadanayso xaaladahan lagu jiro. Ibrahim Ali Nur TV Universal Jowhar.